kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada qaybtii 24aad oo ah qaybta ugu dambaysa ee buugga sheekafaneeda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta 24aad ee ugu dambaysa buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. waxay ahayd maalin Arbaco ah markii reer Sandulle Naxar oo dhami u kulmeen qabanqaabada arooska Saxarla. waxaa dooda iyo qabanqaabada hogaaminaysay Sureer oo da ahaan Samaale ku xigtay. waxay aragtay Saxarla oo ay ka muuqato tiiraanyo oo aad moodid waxa laga hadlaya in aanay laba socon. kadibna Sureer ayaa intay gacanta qabatay Saxarla u kaxaysay qolkii hablaha. waxay weydiisay waxa haya iyo sababta aanay ugu muuqan qof arooskeeda ku faraxsan. waxay wada hadlayeen in ka badan saacad ilaa qoladii kale ee sugaysay ay ka dhibsadeen. ugu dambeyn waxay u sheegtay sababta ay u warwarsanayd iyo in Muumini waa samaanayeediye weli arooskeeda ka soo horjeedo. markii ay Sureer intaas u sheegtay, Sureer ayaa cirka isku shareertay oo waxay tidhi, walaal guursan maysid ninkaas. maxaa adiga oo lagu og yahay reerka aad ka soo jeedid yasid iyo hoos u dhigid kugu kalifaya. sidii ay Saxarli ka warwar qabtay, Sureer ayaa iyadoo ooyeysa u tagtay walaalaheed iyo qorsho oo ka yaabtay waxa inanta ku dhacay ayaa ku tidhi, naabal horta istaji, maxaa kugu dhacay oo aad la qaracmatay sidii geeri lagu soo sheegay. markay arrintii u sharaxdayna, qorsho waxay Sureer ku tidhi, sida aad sheegtay inanku gabadha uu la saftay oo u hiiliyay. haddii uu fikirkii ayadii ka soo horjeestay, istaji oo arrinta cagaha u dhig. sawdigii maalintii hore ku raacay oo dhiirigeliyay Saxarla maxaa ku bedelay? markii ay reer Sandulle Naxar oo dhami mid u waaniyeen Sureer, markii dambe way yara qabowday. Saxarli waxay ku kortay nolol cid u hiilisaa ay yarayd. intii ay gurigii cadar duwane ka tagtayna, waxay ku noolayd nolol ay kalsoonideeda oo keliya ku dhistay oo aan cidina go'aanadeeda ku soo faragelin. waxay yaqiinsatay maadaama ay reerkoodii isheleen in taladeeda lala qaybsanayo, ama ha ku raacda taladooda ama ha ku diidee. waxay arrintaasi Saxarla u ahayd dareen weyn oo kalsooni gaar ah siiyey. waxa ugu dambeyntii qol gaar ah la gashay qorsho oo ula hadashay si waayeelnimo leh. waxay u sheegtay inay fahmi karto dareenka walaalaheed ee ku waajahan in Samaan ayeydii yastay oo meesha ay ka soo jeedo su'aal gelisay. waxay u sheegtay inay ka dhoofayso oo aanay iyada iyo islaantaasiba isarki doonin. waxa kale oo ay si fiican uga dhaadhicisay in aanay warwar isku abuurin ee ay u diyaargarowdo arooskeeda, wejigeedana farxad ka muujiso. Saxarlina waxa ay ku raacday qorsho taladaas. waxay mar kale galeen qorshihii iyo qabanqaabadii arooska. waxay isla habeenkaas gurigooda ku kulmay Samaan, Muxibbo iyo dhammaan reer Sandulle Naxar oo aan qof ka maqnayn, iyagoo isweydiinaya kana tashanaya hoteelkii xafladda arooska lagu qaban lahaa. ayaa taleefan soo dhacay. waxaa taleefanka soo diray Xaaji Taajiri, taleefanka oo ay Sureer qabatay. waxa Xaaji Taajiri u sheegay in aanay isku mashquulin raadinta hoteelka. waxa uu sheegay inuu xilka hoteelka iyo cuntadaba isagu qaaday. waxa kale oo uu sheegay inuu hoteelka Hilton oo uu hore ugu qabtay muhiim iyo Samaale ballan ka sameeyay oo arooska Saxarla iyo Samaan ka dhacayo. markii ay Sureer warkii Xaaji Taajiri u sheegtay walaalaheed, qorsho, Samaan iyo Muxibbo aad ayay ugu farxeen. inkastoo Samaan xoogaa lacag ah ugu talagalay arooska, waxaa lacag badani kaga baxday xanuunkii hooyadii iyo dhakhtarkii lagu qalay. waxaa ka dhacay kar aad u weyn oo xagga dhaqaalaha ah. maadaama ay Saxarli nolol dhib badan iyo fakhri ku soo kortay, may ahayn qof jecel in lacagta lagu loo faro. inkastoo aanay Hilton weligeed arag fikradna ka haysan, haddana in hoteel la qabto oo lacag badan lagu kharash gareeyo waxay u arkaysay waxaa loo baahnayn. waxay kaga kalsoonayd in inta nikaax la sameeyo ducadana la raaciyo. wixii intaas ka baxsan waxay u arkaysay fasahaad iyo dembi. markii ay fakarkeedii walaalaheedu sheegtayna, Sureer ayaa ku tidhi, na adiga waa lagu talinayaaye cagaha dhulka dhig. inkastoo aan cidina waxba ka dhagaysan, qorshe lafteedu waxay la fikradahay Saxarla. waxaanay hablaheeda gaar ahaan Sureer oo talada hogaaminaysay u sheegtay in fasahaadka laga fiican yahay. maadaama waqtiga Samaan u haray uu aad u koobnaa, waxaa hawshii nikaaxa loo qorsheeyay maalin Khamiis ah. maadaama Sureer iyo reerkooda laftoodu magaalada ku cusbaayeen, waxay la hadleen dhowr haween ah oo qaraabada ah oo ay magaalada isku barteen. haweenkay Sureer la hadashay waxaa kale oo soo gaadhay sheekadii ku saabsanayd Muumini inay Saxarla asalkeeda ka hadashay.
haweenkaas oo ay hogaaminaysay Cambare Guluf oo magaalada caan ka ahayd waxay markiiba qaylo dhex dhigtay reerkii Saxarle ka soo jeeday yar iyo weynba waxaana gurigii ilmo Sandulle Naxar ku soo qulqulay boqolaal qof oo mid waliba doonayo inuu arooska gacan ka geysto waxaa hawshii qabanqaabada nikaaxa la wareegay odayaashii iyo islaamihii Saxarle ku abtirsanayay Sureerna waxaa lagu yidhi adigu inay yar baa tahay hawsha dadka waaweyn u dhaaf waxay u sheegeen in wixii tala ah la weydiiyo qorshe iyo jaamac dirir waxaa gurigii ilmo Sandulle Naxar lagu goglay muddo dhowr saacadood ka yar cuntadii iyo cidii karin lahaydna markiiba Cambare Guluf ayaa dad u kala qaybisay waxaa meesha lagu ilaaway inankii gabadha guursanayay iyo reerkoodii Saxarle ayaa markii dambe weydiisay Sureer walaal inanka reerkoodu maxay qabanayaan kadibna Sureer ayaa intay qosashay ugu jawaabtay reerkaasi inaga ayuu inaga tirsan yahay qorshe ayaa markii ay maqashay hadalka labada hablood ee walaalaha ah dhex maray ku tidhi Sureer na waxaasi socon maayaane waxa oo wargeliya ileen iyaga laftoodu xil bay isa saarayaane kadibna Saxarle ayaa intay taleefankii qaadatay qol la gashay oo Samaan iyo Muxibbo xaaladii u sharaxday inkastoo uu Samaan jeclaan lahaa inuu hawsha wax ka qabto haddana wuu ku raacay oo waxa uu yidhi mar haddii iyaguba wanaag wadaan sabab aanu kaga soo horjeedsanaa ma jirto waxaa nikaaxu dhacayay maalin Jimco ah habeen Sabti soo gelayso maalintaas oo uu Samaan rabay inuu Saxarle soo booqdo nikaaxa ka hor Sureer ayaa u sheegtay Samaan inay gurigii reer Sandulle Naxar isugu yimaadaan isaga iyo Saxarle waxa kale oo guriga isugu yimid dad tiro badan oo badankoodu ka socday dhinaca Saxarle iyo reerkooda waxa jidadkii gooyay oo meel walba buuxiyay baabuurtii dadku wateen waxa iyaguna yimid dad aan badnayn oo dhinaca Samaan reerkooda ka socday iyo xaaji taajiri reerkiisii iyo asxaabtiisii oo iyaguna aad u badnaa waxa buuxsamay gurigii gudihiisii iyo daaradiisii dadkii dariska ahaa ayaa yaabay oo isweydiiyay gabadha waxan oo dad ahi meherkeeda yimaadeen cidda dhashay waxay ugu yaraan iska dhaadhiciyeen in nin madax ahi dhalay waxa la galay isweydiisigii iyo kala gudoonkii Saxarle reer Sandulle Naxar waxay wakiisheen jaamac dirir oo ahaa ninka kaliya ee Saxarle ilaa iyo yaraanteedii garanayay Samaan waxaa wakiil ka ahaa oday ay qaraabo yihiin oo la odhan jiray Jibriil Jiisow oo ay magaalada Nairobi ku kulmeen markii ay isweydiisashadu dhacaysay waxay haweenku fadhiyeen qol ku xiga golihii raggu fadhiyay waxaa albaab labada qol u dhaxeeyay xaggiisa dambe soo taagnay Sureer oo meel yar oo albaabka ka banaanayd isha ku soo haysay iyadoo daawanaysay wada hadalka guurtida markii ay Samaan iyo Samaale iskacan qaadeen ee meherkii dhacay ayaa Sureer intay mashxarad ku dhufatay qolkii haweenka dib ugu noqotay kadibna qolkii ayaa mashxarad dayaamay markii ay dumarku wada mashxaradeen isla markiiba intay Sureer walaasheed Saxarle isku duubtay ayay labada dhaban ka dhunkatay waxa ku xigay oo iyaguna mid u dhunkaday Saad Muxibbo Muhiim Qorsho Jihaan Amran Farxiya kadibna wixii dumar joogay oo dhan ayaa ku xigay dhinaca raggana waxaa markiiba la gacan qaaday Samaan isagoo loogu hambalyeynaya munaasabada meherkiisa ee qabsoontay darteed waxaa Samaan ka muuqday farxad aad u weyn inkastoo xishood wajigiisa ka muuqday Saxarle laftarkeedu inkastoo ay aad u faraxsanayd waxaa farxadeedii dayiiqshay tii walaalaheed iyo haweenkii u soo hiiliyay oo qolkii mashxarad iyo heese ku dayaamiyay waxaa iyadana indhaheeda ilma ka soo daadatay Muxibbo oo iyadu wax badan la socotay noloshii adkayd ee ay Saxarle soo martay waxaa markuu meherkii dhacay bilaabantay qadadii inkastoo dadku aad u badnaa cuntada iyo xoolaha guriga lagu qalay maalintaas cid kasta ayay dharginayeen marka lagu daro dariskii oo iyagana la casuumay inkastoo ragga badankoodu tageen markii ay qadeeyeen haweenka badankoodii waxa u socday damaashaadkii meherka iyo hambalyadii caruusada waxaanay haweenkii bilaabeen wada tashigii u diyaargarowga habeenka arooska oo wax badani ka dhinnaa maalintii meherku dhacay habeennimadeedii ayaa gurigii ay deganaayeen hablihii ay Saxarle la deganaan jirtay waa Jihaan Amran iyo Farxiye waxaa yimid Keenadiid oo aan qudina magaalada ka filayn waxa uu sheegay hablihii inuu Saxarle raadinayo markiiba intay hoosta isaga jabiyeen ayay go'aansadeen in aanay u sheegin waxay ka baqeen inay Saxarle nabaradii hore ku dhacay iyo godobtii hore ee uu Keenadiid ka galay ay soo xasuusato halkaasna farxadda arooskeedu ku baaba'do Farxiye oo hablaha ugu hadal adkayd ayaa Keenadiid ku tidhi gabadha sidii aad ogeyd aad u gashay maxaad hadda u raadinaysaa waa la guursaday waxaanay u guurtay Mombasa
waxa uu Kennedy hablihii u sheegay in guurkii hore ka xumaaday kadib markii gabadhii uu guursaday ay isqabteen kadibna ay booliiska ugu yeedhay oo ay xidhay. Waxa kale oo uu Farxiyo u sheegay inuu Saxarle ku wacad furay oo uu meel kaga dhacay, haddana uu u soo noqday inuu xumaantii hore ka xaal mariyo kana codsaday inay cafiso. Markii uu muddo Kennedy hadalkiisii jiidayna waxay Farxiyo ku tidhi, aad baad u indha adag tahay. Haddii aad u soo noqotay inaad Saxarle is hortaagtid, waad ogtahay waxa aad ku samaysay, markaa waxaan kugula talin lahaa in aan dantaadu kaa lumin. maadaama hawshii qabanqaabada cuntada iyo diyaarinta hoteelka reer Sandulle Naxar laga kafaalo qaaday, Saxarle iyo walaalaheed waxay isu diyaariyeen sidii ay korkooda uga shaqayn lahaayeen oo arooska ugu diyaargaroobi lahaayeen. Waxay sureer ballan ka samaysay Ashlis Hair Salon oo ah xarun ku caanbaxday hagaajinta timaha iyo facaska jidhka, gaar ahaan xafladaha arooska. Markii ay Saxarle iyo walaalaheed tageen Ashlis Hair Salon, waxay sureer u sheegtay gabadhii meesha madaxda ka ahayd oo Riyaana la odhan jiray inay aroosada waa Saxarle ee si dheeraad ah ugu hagar baxdo. Waxay u sheegtay inay qurux u dhalatay, laakiin waayuhu kala dhantaalay. Waxay ku tidhi, waxaan rabaa inaad Saxarladii dhabta ahayd ee ay u dhalatay ka soo saarto. Sidii ay beauty salon-ka subaxdii u galeen, waxay ka soo baxeen qorraxda oo markaasii liicaysa. Waa markii ugu horreysay ee ay weligeed Saxarle meel timaha lagu hagaajiyo tagtay. Iska daa dadkii kale, iyadii ayaa iska yaabtay quruxda ka soo ifbaxday. Waxaa sidii loo facsayay jidhkeedii u ekaaday nuur dhalaalaya, timaheedii dheeraa oo si fiican ugu baxay ilaa iyo intay cadar duwane ka tagtayna waxa soo baxay asalkii quruxdooda. Markii ay beauty salon-ka ka soo baxeen ee ay dhexda ku soo jireen, ayay sureer weydiisay Saxarle, walaalo, horta kumaba weydiine yaa malxiisad kuu noqonaya. Waxay markiiba la soo booday, de Muxibbo oo dhinac fadhiday ayaa inta xaggii Saxarle jaleecday qosol dhoolaha qaawisay. Kadibna sureer ayaa tidhi, naamiyaad waalan tahay, Muxibbo waa dumaashida, saaxiibtinimadu ha kuu dambayse. Waxay kaftankii isku colceliyaanba waxay ku adkaysatay in Muxibbo ay malxiisad u noqoto, haddii ay diidana ay iyadoo sureer ahi ama saad u noqonayso. Waxay u sheegtay in guurkii hore ee qasabka ahaa malxiisada loo dooray, iminkana aanay rabin inay murugadaas dib u xasuusato. Saxarle oo hadalka sii wadata ayaa hadalkeedii ku soo gabagabaysay, waan ogahay in waxaan samaynayaa dhaqanka Soomaalida baalmarsan yahay, laakiin waxaan rabaa in aan ku faraxsanaado oo ku niyad samaado qofka dhinac fadhiisanaya. Ugu dambeyntiina waxaa la isku raacay in Muxibbo malxiisad u noqoto, inkastoo markii ay go'aanka Saxarle u sheegeen qorshe iyo haweenkii kale ay ka biyo diideen, haddana markii dambe way ku raaceen markii sureer si fiican ugu sharaxday sababtay Saxarle u dooratay Muxibbo. Waxaa la gaadhay waqtigii arooska loo diyaargaroobi lahaa. Waxaa saddexdii hablood ee walaalaha ahaa iyo Muxibbo isugu tegeen qol gooniya, inkastoo mid kastaaba ay la dhacsanayd sida quruxda badan ee timaha loogu soo hagaajiyey iyo labiska wanaagsan ee ay xidhnaayeen. Waxaa si gaar ah maanta ugu socotay Saxarle oo quruxdeeda lagu indha-daraandarayay. Iyagoo weli isku mashquulsan ayaa taleefan soo dhacay oo sureer loo sheegay inay muhiim raadinayso. Markii ay muhiim la hadashayna waxay muhiim u sheegtay in hoteelkii qol looga qabtay caruuska iyo caruusadda oo aan iyaga xil saarnayn. Isla markay sureer taleefankii muhiim ka dhigtayna waxay sureer warkii u sheegtay Saxarle. Kadibna waxay Saxarle wacday Samaan oo u sheegtay in aanu hoteelka ka warwarin. Samaan oo kharash badani ku go'naa kana fikirayay inta qolku ku kici doono, waa uu u qaadan waayay asxaanta badan ee Xaaji Taajiri u falay. Hablihii oo weli ka sheekaysanaya Xaaji Taajiri iyo wanaagga badan ee uu u galay ayaa taleefan kale soo dhacay. Waxay ahayd muhiim oo raadinaysa sureer, waxaanay u sheegtay in 3 baabuur oo uu Xaaji Taajiri u soo diray ay dhexda ku soo jiraan. Samaan oo isaguna xaggiisa ka diyaariyay gaadiidkii lagu tegi lahaa hoteelka, ayay markiiba sureer la hadashay oo u sheegtay inuu isagoo keli ahi hoteelka iskeeno oo aanu ka warwarin gaadiidka uu u soo diray iyaga. Waxay ahayd arrin kale oo mucjiso ku noqotay Samaan iyo reer Sandulle Naxarba. wax yar kadibna waxaa lagu wargeliyey in baabuurtii bannaanka guriga taagan yihiin. Saacad kadibna waxay dhammaantood iska buuxiyeen baabuurtii diyaarka u ahayd. Waxaa gaadhi wadagalay Saxarle, walaalaheed, Qorsho iyo Muxibbo. Dumarkii qaraabada ahaa ee la joogay iyo hablihii kale ee Amran, Jihaan iyo Farxiina waxay koreen labadii gaadhi ee kale. Intii ay habluhu magaalada joogeen midkeedna ma aanay tegin Hotel Hilton. Waxaa markii ay gaadheen hoteelka ay ka yaabeen quruxda iyo bilicda uu leeyahay.
waxay soo dejisteen dharkii ay arooska ugu labisan lahaayeen, kadibna waxay toos u tageen qolkii loo diyaariyey. Markii ay qolkii galeen, waxay ka yaabeen weynaantiisa iyo sida loo sharaxay. Waxaa miis kasta saarnaa ubaxyo kala duwan oo udgoonka aad moodid in cadar lagu rusheeyey. Waxaa kale oo kasii yaabiyey sariirta jiifka iyo weynaanteeda oo aad moodaysay in dhowr qof loogu talagalay. Midkoodna weligeed ma arkin sariir intaas weynaan la eg. Waxaa qolka xafladda sii kala maamulaysay Muhiim oo aabaheed Xaaji Taajir u xil saaray. Muhiim ayaa intay hoos ula hadashay Sureer ku tidhi, soo baxan qolka xafladda ku soo tusee. Kadibna waanu soo noqonaynaa intay yidhaahdeen ayay albaabka ka baxeen. Markii ay qolka xafladda gaadheenna, Sureer labadii indhood ayaa soo baxay. Inkasta oo ay Ingiriiska wax badan joogtay oo aroosyo badanna ka qayb gashay, weligeed may arag hool xafladeed oo sidaas u weyn oo u qurux badan. Waxaa loo sharaxay si cajiib ah oo aanay weligeed hadda ka hor arkin. Miis kastana waxaa bartanka u yaalay ubax qurux badan oo midabyo kala duwan leh. Waxaa gees kasta taagnaa shaqaale si qurux badan u labisan oo loo keenay inay dadka u adeegaan. Waxay ku dhowaatay Sureer inay oydo, kadibna intay Muhiim hab siisay ayay uga mahad celisay wanaagga xad-dhaafka ah ee aabaheed u sameeyey reerkooda. Waxay u sheegtay inay Saxarle wixii silic soo maray iyo arooskii hore ee lagaga ciyaaray ay kan ku ilaawi doonto. Waxaa soo dhowaaday waqtigii caruuska iyo caruusadda la galbin lahaa. Markii ay hablihii hoteelka yimaadeen, wax waliba diyaar ayay u ahaayeen. Waxa keliya oo dhinnaa inay labistaan oo xoogaa isa sii yara dhalaaliyaan. Waxaa la soo garaacay albaabka qolkii ay ku jireen. Kadibna Sureer ayaa Muxibbo ku tidhi, naa Muxibbo, fur waa iyagiiye. Waa ay asiibtay oo waxay noqdeen Samaan iyo raggii galbinayay. Samaan waxa uu ahaa nin aad u dheer, jidhkiisuna aad u dhisan yahay. Waxaa markii uu Maraykanka tegayba uu bilaabay oo caado ka dhigtay inuu jiimta tago oo jimicsi iyo jidhis sameeyo. Waxa uu xidhnaa 2 go' oo cadcad, garan cad iyo kaba sandal ah oo kuwii Soomaalidu waayadii hore ku labisan jireen. Waxaa iyaguna sidaas oo kale u labisnaay nimadii la socday oo 5 ahaa. Markii la soo dhaweeyay ee nimankii la fadhiisiyey, cabitaanna la siiyey, ayay Sureer u yeedhay Samaan si uu Saxarle qolkii jiifka ugula kulmo. Intii aanay qolka gelin waxaa ka soo baxay dhammaan hablihii ku jiray oo dhan: Saad, Muxibbo, Amran, Jihaan iyo Farxiya. Sureer lafteeduna albaabka ayay kaga hadhay. Waxa uu la kulmay Saxarle oo sariirta gees kaga fadhida oo ku labisan dharkii hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Maradii 3 qaydka ahayd, boqorkii, dhaclihii iyo cunaabigii. Waxaa dhabarkeeda hoganayay timaheedii quruxda badnaa ee loo soo hagaajiyey. Waxaa suxulka ilaa faraha lagu soo xardhay cilaan aad u qurux badan oo lagu soo farayaraystay. Intuu is hortaagay ayuu ku yidhi, maasha Allah, qurux saa'id ah ayaa kaa muuqataa, tii aad u dhalatay oo mid kale lagu daray. Inta uu ku foorarsaday ayuu damcay inuu hab siiyo. Intay xishootay ayay gacanta isaga qabatay. Kadibna intuu qoslay oo dusha kaga booday ayuu ku yidhi, macaan, sow ma ogid inaad xaaskayga tahay. Saxarle oo xishood dartii farihii qaboobeen ayaa ku tidhi, Samaan, timaha ha iga hadlayn ee iga kac. Intuu qoslay oo dhabanka ka dhunkaday ayuu ku yidhi, waayahay macaan. Isla markiiba waxaa albaabka ku soo garaacday Sureer oo u sheegtay in hoosta laga sugayo oo dadkii yimaadeen. Waxaa hoos joogay oo dadka sii maaweelinayay Jaamac Dirir, Hayba Jaamac Dirir, Muhiim walaalaheed Kalnuur iyo Miisaan, iyo Samaan in adeerkii Kalkaal. Waxaa albaabka hoolka laga gala dhinacyada ka safnaa dhalinyaro aad u fara badan oo sacab iyo mashxarad ku soo dhaweynaya caruuska iyo caruusadda. Waxaa hor socday gabadh yar oo sida Saxarle u labisan oo dhiil caana ku jiraan sida, iyo wiil yar oo sida Samaan u labisan oo hadhuub caana ku jiraan sida. Waxaa kale oo iyaguna arooska iyo aroosadda labada dhinac iyo xagga dambe ka socday hablihii iyo wiilashii oo dhammaantood dhaqanka Soomaalida ku labisnaa. Markii ay dadkii arooska ka soo qayb galay arkeen quruxda iyo haybadda dhalinyarada dhaqankoodii u hiiliyey, dhammaantood inta ay istaageen ayay sacab iyo mashxarad kala joojin waayeen. Waxaa markay dadkii martida ahaa iyo arooskii iyo aroosaddii fadhiisteen makarafoonka qaatay Jaamac Dirir oo dadkii munaasabadda martida ku ahaa u sheegay in isaga oo magaca labada qoys ku hadlaya uu dhammaantood uga mahadnaqayo ka soo qaybgalka xafladda arooska Saxarle Sandulle Naxar iyo Samaan Cabdulle Calasow. Waxa uu ka sheekeeyey saaxiibtinimada dheer ee isaga iyo Cabdulle ka dhaxaysay. Waxa kale oo uu sheegay sida uu Cabdulle u ahaa nin shakhsiyad wanaagsan leh oo naxariis badan. Waxa uu dadkii u sheegay inuu markii ugu horreysay Saxarle kula kulmay guriga reer Cabdulle
wax badanna uu ka warhayay adayga iyo wanaagga ay u dhalatay. Jaamac wuu ka gaabsaday inuu ka hadlo silicii iyo dhibaatadii ay Saxarli soo martay, waayo ma uu rabin inuu habeenkeeda farxadda leh kaga ciyaaro. Jaamac oo weli khudbadiisii wada ayaa haweeney da-weyn oo ul ku tukubaysa ka soo kacday kuraasida ugu dambaysa ee hoolka, iyadoo dhutinaysa ayay dadkii soo dhex martay. Saxarlo oo dhinaca midigta ka fadhiday Samaan ayaa intay afka u dhaweysay weydiisay, qofka soo socdaa miyaanay muumino ahayn? Samaan oo yaaban oo aan filayn inay meesha imanaysa ayaa yidhi, wallaahi waa iyadii. Sidii ay usii tukubaysay ayay islaantii Jaamac tirir hortiisa soo joogsatay. Jaamac oo xaaladda la socday iyo inay muumine arooska Saxarle iyo Samaan ka soo horjeedo ayaa intuu yaabay yidhi, muumina iska waran. Waxaa markiiba nuxnux iyo hadal hoose bilaabay dad badan oo ay Saxarle isku reer yihiin oo muumine xinkeeda madasha u yimid. muumino oo hoos u hadlaysa, laakiin codkeedii makarafoonku qabtay oo cid waliba maqashay ayaa tidhi, Jaamac 2 kelmadood ma dhihi karaa? Markiiba waxaa xagga dambe ee hoolka ka qayliyay dhowr dumar oo xanaaqsan, kuna dhawaaqay maya maya ha u dhiibin. Raalliga ahaada intuu Jaamac dirir yidhi ayuu makarafoonkii muumino u dhiibay. Markii ay makarafoonkii qabsatay ayaa xaggii Saxarle iyo Samaan jaleecday. Wax yar kadibna xaggii dadweynaha xafladda ka soo qayb galay ayay u jeesatay, iyadoo aad mooddo inay qof indhaha ula raacayso. Markii ay cabbaar aamusnayd ayay tidhi, dhammaantiin waan idin salaamay. Waxay ka hadashay aqoonta fiican ee ay u leedahay Saxarle ilaa iyo yaraanteedii. Waxa kale oo ay tidhi inay aad iyo aad uga xun tahay hadal hadda ka dhacay oo ay su'aal ka keentay guurka Saxarle iyo Samaan. Waxay tidhi wax iga si noqday ma garanayo, laakiin anigu ma yihi dadka Soomaalida kala sooca. Jaamac dirir oo aan weligay aqaanay oo aan dad u jecelahay xitaa waan ilaaway. Waxa kale oo ay tidhi, qabyaaladdu waa waxa dadkeenan baabi'iyey mana aaminsani. Waxay Saxarla reerkooda iyo qoyska ay ka soo jeedaba ka codsatay inay cafiyaan. Waxay tidhi, kolley xantaas ah inaan guurka Saxarle iyo Samaan ka soo horjeestay weydin soo gaadhay, laakiin waan ka noqday. Saxarle iyo Samaanna waanu ducaynayaa. Kadibna intay makarafoonkii Jaamac dirir u dhiibtay oo xaggii Saxarle u dhaqaaqday ayay dhafoorka ka dhunkatay, kuna tidhi, hooye iga raalli ahow. Dadkii arooska ka soo qayb galay ayaa intay dhammaantood sare joogsadeen u sacbiyey muumina. Waxaa markiiba isbedelay dareenka dadkii muumino u xanaaqsanaa, waxaanay aad uga farxeen hadallada wanaagsan ee ay soo jeedisay iyo siday u garatay hadalkii ka dhacay inuu khalad ahaa. Intii ay kursigeeda kusii socotay iyo markii ay fadhiisatayba, dad badan ayaa ku soo xoomay oo intay salaameen u mahadceliyey. Markii ay fadhiisatayna waxaa mar kale makarafoonkii ku noqday Jaamac dirir oo muumino aad ugaga mahadnaqay hadalka wanaagsan ee ay soo jeedisay. Waxaanu dadkii u sheegay inuu muumino si fiican u yaqaan oo aanu marna xumaan ka filayn. Markii uu hadalkiisii soo gabagabeeyeyna waxa uu makarafoonkii ku wareejiyey Kalkaal oo xafladda inteedii dambe daadihinayay. Wax yar kadibna Kalkaal waxa uu dadkii u sheegay in cashadii diyaar tahay oo la casheeyo inta aan ciyaarta iyo damaashaadka la dhexgelin. Habeenkaas cunto magaceeda la yaqaan oo meesha ka maqnayd may jirin. Waxaa dadka ku dhex wareegayay shaqaalihii hoteelka oo dadka weydiinayay inay wax kale u baahan yihiin. Waxaa isaguna miis kasta tegayay xaaji taajiri oo dadka weydiinayay inay cuntadu wanaagsanayd. Dhereg dartii dad ayaa meeshii ku lulooday oo iska daa ciyaar ay ciyaaraane indhihii kala furi kari waayey. Markii la casheeyey kadibna waxa iska soo daba dhacayay cabitaano kala nooc ah, kafee, shaah iyo ciddii macmacaan xiisaynaysay. Kalkaal ayaa intuu mar kale makarafoonkii qabsaday yidhi, iminkana waxaan boqorka iyo boqoradda ka codsanayaa inay soo kacaan oo cawayska inoo furaan. Kadibna Samaan ayaa intuu istaagay gacanta qabtay Saxarle si uu u istaajiyo. Saxarle weligeed intay gole istaagtay kamay ciyaarin, iyadoo xishood weyni wejigeeda ka muuqda ayay ku tidhi, fadlan iska kay dhaaf. Intuu qoslay isagoo weli gacanta jiidaya ayuu ku yidhi, caawa lagu dhaafi maayee soo kac. Waxaa intay kacday oo gacantii kale qabatay Muxibbo oo malxiisad u ahayd. Kadibna iyadoo luudaysa oo xishood la dhaqaaqila ayay goobta ciyaarta ee caruusada iyo caruuska loogu talagalay u raacday. Waxaa iyaguna markiiba soo booday oo dhinacyada ka galay walaalahee Sureer, Saad iyo Muhiim iyo hablihii saaxiibadaheed ee ay la deganaan jirtay ee Amran, Jihaan iyo Farxiya. Waxaa ciyaar xumadii Saxarle asturay gabdhihii ku weegaarnaa.
oo kulligood si fiican ciyaarta iyo qoobka ciyaarka u garanayay. Iyadoo isku dayeysay inay hablaha jaanta la qaado, ayaa indhaheeda waxaa ku dhacay Samaale oo wejigeeda meel ku beegan fadhiyay. Kadibna intay hoos ula hadashay Sureer ayay ku tidhi soo kici. Sureer ayaa markiiba xaggii Samaale u dhaqaaqay oo gacanta soo jiiday. Sidii ay u soo waday ayay golihii ciyaarta dhex keentay. Kadibna intuu labada gacmood qabsaday Saxarla ayuu la ciyaaray. Waxaa indhaheeda ka soo daatay ilmo. Waxay xasuusatay sidii uu nolosheeda ugu weynaa iyo inay ka samirtay oo ay istiri weligaa arki maysid. Waxaa markiiba soo booday Sureer oo intay ilmadii sacabada kaga tirtay ku tidhi walaal naga daa oohinta, caawa waa habeen farxadeede. Wax yar kadibna Sureer ayaa intay oroday gacanta soo qabatay Saylaan oo ku tidhi war ciyaarta soo gal, maxaa meesha ku fadhiisiyey. Habeenkaas ciddii qoobka ciyaar reer galbeed xiisaynaysay iyo ciddii ciyaar Soomaali u oomanaydba si wanaagsan ayaa loo tuntay. Waxa uu ahaa arooskii ugu xiisaha badnaa ee in muddo ah ka dhaca magaalada Nairobi. Dadka qaarkood waxay hoos isugu sheegayeen inuu ahaa arooskii qarniga. Waxa ugu dambeyntii la gaadhay waqtigii keega la goyn lahaa. Dadkiiba isweydiiyey meesha keegu yaallo, waayo sida caadada ah meel aan arooska iyo aroosada ka fogeyn ayaa la dhigi jiray. Waxaa mikrofoonkii qabsaday kalkaal oo dadkii u sheegay haddii aad caawa sugayseen keeg la gooyo, waxa lagu bedelay caano geel oo ah dhaqankeennii. Dad badan baa aad ugu farxay oo sacbiyey, inkastoo kuwii keega macaan rabay ay hoos u gunuunacayeen. Kadibna waxa uu kalkaal u yeedhay Saxarle iyo Samaan oo waxa uu ka codsaday inay caanaha mugaabiyaan. Wuxuu u keenay hadhuub caano ah oo weli xoorkii ka muuqdo. Wuxuu u dhiibay Samaan. Kadibna Samaan oo qoslaya oo ka baqaya inay caanuhu ku daataan ayaa ka badsiiyey Saxarla. Kadibna iyadii ayuu u dhiibay. Saxarle oo weli bishimaheeda xoorkii ka muuqdo ayay Muxibba markiiba ka masaxday. Mar kale Saxarle oo xishood ka muuqda ayaa hadhuubkii u dhoweysay Samaan afkiisa. Markii uu ka baday kadibna isagoo weli xoorkii ku yaalla ayuu hoos u yidhi mahadsanid macaan. Kadibna waxaa martidii lagula wareegay dhiilo caano ah oo qofkii rabay koob loogu shubayo. Markii caano mugaabintii xafladdu dhammaatayna waxaa mikrofoonkii ku soo laabtay kalkaal oo dadkii ku yidhi aroos lagama raago, lagumana raago. Xafladdii halkaas ayay noogu eg tahay. Markii Samaan dhoofay kadibna waxaa bilowday qabanqaabadii arooskii Samaale iyo Muhiim. Arooskii Saxarle iyo Samaan waxa uu ahaa bile nasiib u noqday dhalinyaro badan oo arooskooda ka shaqaynayay. Waxay dhalinyaradu isku barteen hawshii qaaliga ahayd ee ay u hayeen Saxarle iyo Samaan. Saxarle saaxiibadeed Muxibbo ahaydna dumaashideed oo Samaan la dhalatay. Waxaa doonay Miisaan oo uu dhalay Xaaji Taajiri. Sureer waxaa doonay Hayba Jaamac Dirir. Saxarlena waxay dhooftay 3 bilood kadib iyadoo aad u faraxsan oo walaalkeed Samaale arooskiisii si fiican uga shaqaysay. Waxa kale oo ay goobjoog ka ahayd meherkii walaasheed Sureer iyo saaxiibteedii koowaad ee Muxibbo. Markii ay Saxarle Mareykanka u dhooftay, waxaa sanad kadib u dhashay wiil ay u bixisay Bilaal. Kadib markii uu Samaan ku dhiirigeliyey inay magaca u bixiso, isagoo ku yidhi waa beddelkii Bilaal, waana walaalkii. Saxarle markii ay Mareykanka timid waxay degtay magaalada Minneapolis. Waxay magaaladaasi noqotay meesha ay dadka Soomaalida ah ee Mareykanka degani ugu badan yihiin. Inkastoo ay dhulkeedii iyo dadkeedii ka soo fogaatay, haddana ma aanay dareemin kelinimo. Waxay deganayd meel aan ka fogeyn suuqa Carmel ee Soomaalida. Maalin maalmaha ka mid ah iyadoo suuqa Carmel dhex maraysa ayaa waxay jaleecday gabadh 2 carruur ah wadata oo ay u malaysay inay wejigeeda garanayso. Markii ay gabadhii aragtay inay Saxarle ku dheegagsan tahay ayay iyaduna xaggii Saxarle jaleecday. Intay labadoodiiba ilka caddeeyeen ayay gabadhii 2 carruur ah wadatay Saxarle ku tidhi abbaayo meel ayaan kugu arki jiray. Saxarle oo lafteedu hubtay inay gabadhan meel ku aragtay ayaa intay wejigeeda si fiican u sii eegtay ku tidhi wejigaagu waa igu yaallaa, laakiin meeshaan kugu arkay garan maayo. Kadibna Saxarle ayaa u sii raacisay magacaa walaalo. Gabadhii ayaa ugu jawaabtay abbaayo magacayga waxaa la yidhaahdaa Batuulo, adigana. Saxarle oo sinta ku siday Bilaal ayaa intay dhulka dhigtay afkana gacanta saartay ku dheegagtay gabadhii kuna tidhi walaalo aniga Saxarle ayaa la yidhaahdaa, ma Batuuladii aan garanaya ayaa tahay. Batuulo oo labadeedii carruur ahaa dhinacyada ka taagan yihiin ayaa Saxarle ku booday oo habsiisay. Sidii 2 qof oo isjeclaa oo kala lumay ayay isku dul ooyeen. Waxay mid waliba xasuusatay darxumadii ay tan kale ku noolayd, mana ay filayn in mar kale ay noloshu kulmin doonto.
Saxarla oo Bilaal madaxa u salaaxaysa ayaa Batuulo ku tidhi, waa wiilkaygii labaad, waxaa magaciisa la yidhaahdaa Bilaal. Kadibna Batuulo ayaa weydiisay, oo wiilkii kaleba gurigii ayaad kaga timid? Saxarla ayaa ugu jawaabtay, maya walaalo, markii aan xeradii qaxoontiga ee Dhadhaab imid ayuu igaga dhintay. Batuulo ayaa ku tidhi, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Abaayo, waan ka xumahay. Ma Dhadhaab baad joogtay? Aniga laftaydu muddo ayaan joogaye. Intii aanay Saxarli u jawaabin ayay Batuulo u sheegtay magacyada carruurteeda oo kala ahaa Bashiir iyo Barwaaqo. Markii ay muddo sare joog isku wareysanayeenna, Batuulo ayaa ku tidhi Saxarla, hadal istaag kuma kala dhammaysan karnee, goormaad adeegaaga dhammaysanaysa aynu israacne. Kadibna waxay Saxarli u sheegtay Batuulo inay adeegeedii dhammaysatay oo ay gaadhi wadato. Kadibna waxay go'aansadeen inay guriga Batuulo oo aan Kaarmel aad uga fogeyn isu raacaan. Waxaa markii ay guriga Batuulo tegeen guriga joogay Batuulo ninkeedii Bille oo maalintaas fasax ahaa. Bille waxa uu aad xariif ugu ahaa cunto karinta, waxaana uu sii kariyey qada aad u macaan intii ay Batuulo suuqa ku maqnayd. Waxay Batuulo isbartay Saxarla iyo Bille, waxaanay Bille ku tidhi, berigii aan darbijiifka ahaa ayaanu Saxarla isbarannay, iyadoo yar oo markaas mii ka soo gashay. Saxarla oo niyadda iska weydiinaysay sida ay Batuulo dibjirnimadii uga baxday, ayaa markiiba dareentay inuu nolosheedii hore Bille si fiican ula socdo. Batuulo oo isbaristii Saxarla iyo Bille wadda ayaa iyadoo qoslaysa Saxarla ku tidhi, kuu sheegi maayo sida aanu isku barannay, laakiin qacdii ugu horreysay ee aan aniga iyo Bille kulannay ayaanu labadayaduba dareennay in laysku kaayo sameeyey. Sidii ay u sheekaysanayeen ayaa gabalkii dhacay. Kadibna Batuulo ayaa weydiisay Saxarla, goorma ayaa odaygaagu shaqada ka soo baxaya? Markii ay ku tidhi mar hore ayuu ka soo baxaynaa, Batuulo ayaa ku tidhi, wac oo u sheeg inuu ina soo maro, waxaa fiican in aynu si fiican isu baranne. Kadibna Saxarla ayaa wacday Samaan oo u sheegtay guriga ay joogto. Muddo 30 daqiiqo ka yarna waxaa albaabka soo garaacay Samaan. Markii Samaan yimidna waxay Saxarli bartay Batuulo iyo Bille. Samaan noloshii hore ee Saxarla ma ahayn mid ka qarsoon. Maalintii uu aabbihii Cabdulle guriga keenay ayuu si cad u xasuustaa. Markii ay isguursadeen kadibna waxay uga sheekaysay wixii dhib iyo dheefa ay nolosheeda soo martay. Waxay markii ay isbartay kadib Saxarli u sheegtay Samaan in Batuulo ay tahay qoftii nolosheeda badbaadisay, kuna dhiirigelisay inaanay suuqa ku raagin ee ay habaryarteed si degdeg ah u hesho. Saxarla iyo Batuulo inay salaan waxay labadoodaba u ahayd fursad qaali ah oo xusuusisa noloshii adkayd ee ay soo mareen. Saxarla oo dib u xasuusatay noloshii gidaarka ayaa weydiisay Batuulo meesha ay ku sugan yihiin Dooli iyo Dhuuri. Intay qosol la dhacday Batuulo ayay tidhi, ileen weli waad xasuusataa labadii ciyaala suuq. Saxarla ayaa inta iyaduna qosashay tidhi, Dooli ayaa ciyaala suuq ahaa ee Dhuuri muu xumayn. Waxay Batuulo u sheegtay Saxarla in Dhuuri iyo Dooliba ay markii dambe ka baxeen darbijiifkii oo ay noqdeen niman shaqaysta. Waxa kale oo ay u sheegtay in Dhuuri degan yahay Minneapolis oo uu leeyahay xaas iyo 2 carruur ah. Doolina uu Yurub galay laakiin aanay garanayn sida xaaladiisu ku sugan tahay. Kulanka Saxarla iyo Batuulo waxa uu ahaa fursad cajiib ah oo labadoodaba xusuusiyey noloshii adkayd ee ay soo mareen, waxaanay noqdeen saaxiibo dhab ah oo mar walba iska warhaya. Waxaa ka soo wareegay 2 sannadood markii ay Saxarli Maraykanka u dhooftay. Waxay ka joogi kari weyday walaalaheed iyo saaxiibadeed Muxibbo oo iyaduna Ingiriiska u dhooftay, maalin walbana ku odhan jirtay na soo booqo. Waxay ka cagajiidaba waxay aakhirtaankii go'aansatay inay dhoofto, kadib markii ay saad u sheegtay inay guursanayso oo arooskeedii la qabanqaabinayo. Sidaas ayay ugu dambeyntii ugu dhooftay Ingiriiska iyadoo Bilaal wadata. Waxaanay ku kulmeen magaalada London oo ay dhammaantood deganaayeen. Sureer waxay dhashay gabadh ay u bixisay Saxarla. Waxaa Samaale iyo Muhiim u dhashay wiil ay u bixiyeen Bilaal. Waxaa sidoo kale Muxibbe iyo Miisaan u dhashay wiil ay u bixiyeen Bilaal. La kulanka walaalaheed iyo saaxiibadeedii nolosha ee Muxibbo waxa uga sii xiiso badnaa ka qaybgalka arooska walaasheed Saad iyo inankii guursanayay ee Samakaab. daawadayaal waxaynu intaas ku soo afmeeri doonaa qaybtii 24aad oo ahayd qaybta ugu dambaysa ee buugga sheekafaneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. Inta aynu buuggan mid la mid ah isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo is arag dambe oo xiiso leh.